iyadoo fayskeedu furan yahay oo nadiifa oo sidii maxkamadda lagu keenay oo kala abaan loo ka soo dejiyay gaariga waxa weeye salaad bay tukatay cafis bay naga dalbatay hodan ayadoo ay dhahaysa walaalo iyo cafi ayaan togtay ayuu leeyahay Saabirin walaalkeed. haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago waraysiyo badan oo bixiyay wiil dhashay Saabirin oo ah shakhsiga togtay hodan Maxamuud Deeri oo ahaa gabadhii dhashay Saabirin. waraysigan wuxuu noqday midkii ugu yaabka badnaa in gabadhu salaad tukatay hodan ay ka codsatay in mataqaana markaasi ay iska cafiyaan maadaama gabadh walaashooda ay dishay balse waxa uu sheegay inay cafiyeen kadibna toogteen. waxaan rabaa waqti badan oo ka cunin in waraysigan kula wadaago marka hore u dhacay hodan iyo sidoo kale Saabir in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto kana aqbalo maadaama xadkii laga oofiyay gabadhaas yarna dambigeeda alla dhaafo. waa mahadsantahay. waxaan rabaa inaan kula wadaago waraysi ama cod laga duubay hodan ninkii toogtay oo la dhashay Saabirin Seelaan Cabdulle. waraysigan ayaan rabaa inaan si guud kula wadaago laba waraysi oo ay kala bixiyeen wiilka walaalkiis iyo sidoo kale gudoomiyaha iyadoo fayskeedu furan yahay oo nadiifa oo sidii maxkamadda lagu keenay oo kala abaan loo ka soo dejiyay gaariga waxa weeye salaad bay tukatay cafis bay naga dalbatay. ku soo dhawow Maxamuud Seelaan Cabdulle Aweys. wararka qaar ayaa sheegay in cidda la toogtay aysan ahayn hodan, maxaad caddeyn u haysaa? salaamu calaykum. aad baan kuu salaamayaa Yackow walaalle. waxaan aad iyo aad u salaamayaa shacabka Soomaaliyeed. waxaan ku xaqiijinayaa inay ahayd hodan cidda la toogtay. shalay annagaa taagnayn annaga iyo caa'iladayada iyo ilmo Seelaan oo dhammaystiran annagaa hubinnay hor istaagnay xitaa ay cafis xitaa naga dalbatay. haddee waxa weeye qoftaasi qisaastii ay lahayd bayna madhay, waajibaadkii laga lahaa baana lagu fuliyey, ciddii ka lahayd baana ku fulisay, waana naloo fuliyey qisaastii intaan ka rabnay annagu. ma hubtaa in ay hodan ahayd qofkii shalay la toogtay? haa waan hubnaa. weliba waa xaqiijinay weliba si fiican ayadoo fayskeedu furan yahay oo nadiifa oo sidii maxkamadda lagu keenay oo kala abaan loo ka soo dejiyay gaariga waxa weeye salaad bay tukatay cafis bay naga dalbatay waana cafinay. hadda qoftaasina allaha u naxariisto. ma ku qanacsan tihiin qisaastii shalay lagu fuliyey hodan? waa ku qanacsannahay. dowladdana waa uga mahad celinay bahda garsoorka. aad iyo aad buuna u dhacay xukunkaasi sidii aanu ku qanacsanayn buuna u dhacay. waxa weeye ciddii waxa weeye kiiska fududaysay oo annaga noo soo fududaysay qisaastaasna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. khayrna allah ka siiyo. qisaastu waa waxa keliya oo dadku dhex yaallo oo ay dadku kala badbaadayaan weeye. waana wax ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay. waxa weeye dembina ma ahan qisaasta qofka haddii laga dejiyo. waxa weeye qofku dee qisaastii uu geystay iyo dilkii uu geystay unbaa ka degay. xisaabtankii alle waa u yaallaa. marka annagu qisaastii aan lahayn baa fulisan insha allah. dadka qaba wararka ah in aysan hodan ahayn cidda la toogtay maxaad leedihiin? wararkaas warar beena weeye. warar waxa weeye aad waxa weeye suuqa gelinaysaan weeye. dadkana waxa isku dira waa dadka raba inay ka dhex shaqeeyaan oo waxa weeye dambi miiran iyo waxa weeye iyo kurkuteen waxa weeye la wareegaya. dadkaasina waxaan ugu baaqayaa dadka raba inay dadka isku diraanin iska daaya, ilaahay ka baqa. gabadhaasi waa dhimatay. hadda ayadii baa ajar u shaqaynaysaan oo meyd qof dhintay baad hadda wadaan. dee waana ku cariiqsanaysaan oo dadkii qofkii uu ka dhintay baad waxa weeye ku soo laabcelinaysaaniin. joojiya waxaas waxyaabo foolxun weeye. wax aan dadka u fiicnayn weeye, waxaan bulshada u fiicnayn weeye, waxaan gobolka u fiicnayn weeye, waxaan sumcadda Puntland u fiicnayn weeye. iska daaya, ka waantooba waxaas. gabadhaasina allah u naxariisto una soo duceeya. waxaana waxa weeye fariin halkan u farayaa ehelkii ay ka baxday. samir iyo iimaan allah idinka siiyo. allah u naxariisto. annagu waxa weeye xumaan ma nagama ahaynoo dee wax sii fidaya unbaan annagu waxa weeye joojinaynay.
waana wax aanu lahayn oo aan xaq u lahayn marka gabadhaasi allah u naxariisto una soo duceeya kitaabkeedana gacanta midig allah ka siiyo. gudoomiye ma xaqiijin kartaa gabadhan in saaka la qisaasay oo xukunkii ku dhacay lagu fuliyey? Catoosh subax wanaagsan soo dhawow. hodan waa la qisaasay, xaqiina waa laga oofiyey. caa'iladii ay Sabriin ka dhalatayna waa ku qanceen, marka waa ku xaqiijinaya arrinkaas. qisaastaasi waa fushay. inkastoo dhowr maxkamadood martay gabadhan, haddana xukunkaas waa lagu qanacsanaa miya markaad dhinac walba ka eegteen oo shareecada la waafajiyey? Cabdirasaaq, maxkamaday martay, shareecada la waafajiyey. arrinkaasi wuxuu ahaa xukunkaasi xukun si sax ah oo cadaalad ku fulay buu ahaa. ayaduna hadda qiraal bayba ahayd, laftigeedu waa ku qanacday oo waxa weeye codadkeeda haddaad dhegaysatay waxay tiri wixii shareecada islaamka igu xukunto waa ku qanacsanahay. marka xukunkaasi xukun lagu qanacsan yahay labada darafba buu ahaa. allah u naxariistay marxuumadda, carruur bay lahayd oo reerku wuu buuxay. marka sidan oo kale qof hooyaa loo dilo maxaa la yeelaa? maxaa laga sameeyaa? carruurtii iyo aabbihii reerka miyaa loo tagaa? ma la tacsiyeeyaa? qalbiga ma loo qaboojiyaa? maxaad samaysaan? Cabdirasaaqow, waana dhaqan Soomaaliyeed haddii sidaan oo kale ay dhacdo in la isu soo booqdo, la isu tacsiyeeyo. shareecaduna waa ogoshahay in reerkii la soo booqdo oo carruurtii iyo eheladii iyo caa'iladii loo xoolo gooyo oo wixii maaragtay la tari kara la taro. qof walba wuxuu tari karo dadka caa'ilada ah. marka in la soo booqdo oo haddii ilaahay kuu roon yahay loo laabqaboojiyo oo loo tacsiyeeyo oo lagala qayb qaato tacsida waa waajib weeye ina saaran. dhalashada iyo islaamnimada intuna waxa weeye iyo dhaqankeena waa wax hawl ay inoo fasaxayaan weeye. gudoomiye gobolkan mudug dhinaca Puntland ee gudoomiyaha ka tahay, mar ma ahan oo laba ma ahan inta jeer ee dilal noocan oo kale ay dhacaan, ma la sii wadayaa dilalkan xukunka ah ee maxkamadaha iyo garsoorka la marinayo? Cabdirasaaqow, dilalka noocaan ay hadday dhacaan gobolka mudug 4 gabdhood baa hadda intii maaragtay sanadahan u dambeysay sidaan oo kale loo dilay. 4tii gabdhoodba waa loo qisaasay, walow 3dii hore ay rag dileen, 3daba waa loo qisaasay. marka waa sii wadaynaa. ragguna waa la mid oo cid walba oo qisaas ku waajibto in lagu fuliyo waxa weeye annaga waa naga go'an tahay. laakiin caa'iladu ayada xaq u laho qofka waana sii dayn kartaa, duugna waa ka qaadan kartaa, waana qisaasan kartaa. caa'iladay ka go'daa, laakiin annaga xaggeega shareecada inaan waafajinno oo aanu qofkaas maxkamad la geeyo oo sharciga la waafajiyo oo qisaasta lagu fuliyo waa ka go'an tahay. waana sii wadaynaa, mana joojinayno.